Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. Waa qaybtii 8aad ee buugga qisooyinka nebiyada. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ah ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaaga codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah buug la soo koobay. Buugga aad halkan ka dhageysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalsida Media. Maantana waxaa akhrin doona qisadii Nebi Shucayb iyo Nebi Ayuub iyo Suleymaan. Marka fadlan la soco buugaagta aan halkan ku soo gudbino, waxayna ku bilaabaynaysaa sidan qisadu. Ogeysiis horta, ma ogtaha qofka buugta akhriya ama dhagaysta waxaa kordhaya garaadkiisa, waxa uuna noqonayaa qof aad u kalsooni badan oo ka sarreeya dadka uu la nool yahay. Marka daawade waxaa kuu rajaynayaa in aad nugaysiiso qoto qof garaad badan. Taariikhaha adduunka la socda buugaagta halkan kala socda iyaga oo dhammaystiran. Ogowna haddii aad isku qancinaysi waxaan waa application, codkiisa lama dhagaysan karo, waa mid adig ku taal. Anigu waxa u dhididayaa dadka faa'iidada raba oo raba in ay wacyigood dhisaan. 40 daqiiqo oo ay 10 bog ku akhrin lahayd kuugu bedelo 10 daqiiqo oo dhegaysiga iyo 5 bog oo hal mar ah. Qisaduna waxay ku bilaabanaya sidan. Nebi Shucayb. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu reer Madyan u diray Nebi Shucayb. Madyan waxay ka mid ahayd qabiilada Carbeed, waxay degganaayeen hareeraha Shaam. Waxay ahaayeen dad tiro badan oo jir ahaan xoog badan. Waxaa loo barakeeyey irsaaqada iyo miraha intii ay ku shukrin lahaayeen nimcooyinka Alle. Waxay adeeceen shaydaanka, ku kufriyeen Allihii abuuray. Waxay caabudi jireen geed weyn, haddana waxay khiyaamayn jireen beega iyo miisaanka. Waxay cuni jireen xaaraanta. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu u soo diray Nebi Shucayb calayhi salaam, wuxuuna Nebi Shucayb ugu yeeray in ay caabudaan Allah oo keliya oo aysan u shariik yeelin. Wuxuuna ka reebay inay caabudaan geedkaasi. Wuxuu faray cadaaladda, wuxuuna ka reebay dulmiga iyo fasahaadinta arlada iyo khiyaamaynta beega. Dadkii sidaa loo wacdinayay waxaa la soo taagnaayeen, hantideenna annaga ayaa iska leh, wixii aan doono ayaan ku samayn. Waxay gudagaleen in ay ku jeesjeesaan Nebi Shucayb. Istkuna markasta waxa uu xusuusin jiray nimcooyinka Alle. Marar badan ayuu uga digay cadaabka Alle oo waxa uu xusuusiyey wixii ku dhacay reer Huud, Tamuud iyo reer Saalix, balse waa ay ku dhega adeygeen hadalkaasi. Waxayna bilaabeen in ay ugu hanjabaan Nebi Shucayb iyo intii rumaysay in ay degmada ka saari doonaan. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku soo dejiyey cadaabkiisa kuwii diiday amarkiisa kuna jeesjeesay nebigiisa. Rabbi Sut oo nooga warramay qisada reer Shucayb waxa uu yidhi, Madyana waxaan u dirnay walaalkood Nebi Shucayb, wuxuuna yidhi, qoomkaygow Alle caabuda. Idinma sugna Alle kale, ha nuqsaaminina beega iyo miisaanka. Waxaan idinku arkaa khayre xoolo, waxaana idinka cabsi qabaa cadaab maalinkooba. Eebbe weyne Sut oo inoo sheegaya warcelintii reer Madyan waxa uu yidhi, waxay ku dhaheen Shucaybow, ma salaadaada ayaa ku faraysa in aan ka tagno waxay caabudayeen aabbayaasheenna, ama in aynu samayno xoolahayga waxaynu doono? Adigu waxaad tahay mid dulqaad badan oo hagaagsan. Jees dartiis kolkii halaagoodii la gaaray baa Rabbi nooga warramay. Marka uu yimid amarkanagii, waxaan ka korinay, badbaadinay Shucayb iyo kuwii rumeeyey naxariistannada. Waxaana kuwii dulmiga falay ku habsaday qaylo, waxayna ahaadeen kuwo guryahoodii ku dhintay. Maxaynu ka baran karnaa qisadani? Hal Allah oo keliya ayaa cibaado u sugnaatay. 2. Fasahaadinta arlada iyo khiyaamaynta beeca waxay keenaysaa halaag. 3. Salaadu waxay reebtaa xumaha iyo munkarka. 4. In dadka loo cadaalad falo waxay ka mid tahay tilmaamaha mu'miniinta. Nebi Yuunus calayhi salaam waxa uu ka mid ahaa nebiyadii Bani Israa'iil. Allah ayaa u soo diray qoomkiisa oo degganaa tuulo lagu magacaabo Niinawa oo ka tirsan Mowsul, Ciraaq. Qoomkiisa waxay ka badnaayeen 100,000 oo qof oo isugu jira rag,
dumar iyo carruurba. Waxayna caabudi jireen sanamyo, meerayaal iyo xiddigo. Allah ayaa u soo diray Nebi Yuunus oo lagu yaqiinay runsheeg, dhaqan wanaagsan iyo sharaf. Uu ku dhex lahaa bulshada waxa uu ugu yeeray in ay Allah oo keliya caabudaan oo ay ka tagaan sanamyada iyo meerayaasha. Wuxuu Nebi Yuunus xusiisiyey nimcooyinka uu Allah ku manaystay, balse qoomkiisa waxay ku madax adeygeen gaalnimada, waxayna bilaabeen inay ku jeesjeesaan Nebi Yuunus. Balse Nebi Yuunus waxa uu uga digay carada iyo cadaabka Alle. Sidaa oo ay tahay, cid qoomkiisa ka mid ah oo rumaysay baa iska yar. Nebi Yuunus oo arrinkaas ka murugaysan ayaa ka tegay tuuladii kadib markii uu ka quustay in qoomkiisa ay rumeeyaan. Markii uu raacay dooni oo ay in yar socotay, ayay bilowday in ay hirarkii isqabsadaan. Nebi Yuunus waxaa lagu tuuray baddii, waxaana markiiba liqay kalluun weyn. Nebi Yuunus ayaa bilaabay in uu tasbiixsado isaga oo ku jira caloosha kalluunka. Allesu waxa uu kalluunkii faray in uu sii fasaxo Nebi Yuunus. Rabbiisu waxa uu Nebi Yuunus u sheegay in uu ku laabto tuuladiisii oo uu dadka ugu yeero diinta. Kolkii uu tegey ayay rumeeyeen. Eebbe weyne waxa uu ka qaaday wixii kurba ahaa ee haystay, wuxuuna ku galladaystay nimcooyin fara badan. Qisada Nebi Yuunus meelaha qur-aanka lagu sheegay waxaa ka mid ah suurad As-Saafaat. Alle suut waxa uu yidhi, Nebi Yuunus waxa uu ka mid ahaa rusushii la soo diray. Xusuuso markuu ku dhuuntay doonidii buuxday, markaasuu qori tuurtay, wuxuuna noqday kuwa laga raayay. Waxaa liqay nibirigii isagoo eedaysane ah. Haddii aanu noqon ahayn kuwa Ilaahay u tasbiixsada, wuxuu ku nagaan lahaa calooshiisa ilaa maalinta dadka la soo saaro. Waxaanu ku tuurnay bannaanka isaga oo xanuunsanaya. Waxaanu dushiisa ka soo saarnay geedka yaqdhiinka aaradubaha. Waxaanu u dirnay 100,000 oo dad ah ama ka sii badan. Ilaahay bay rumeeyeen, waana u raaxaynay oo sugnay ilaa muddo. Maxaynu ka baran karnaa qisadani? Hal, in Alle lagu caasiyo waxay sabab u tahay cadaabka oo soo degdega. 2, in Alle loo toobad keeno waxaa lagu faydaa cadaabka iyo kurbooyinka. 3, tasbiixda iyo istikfaarta iyo ducadaba waxay faraj u furaan qofka dhibaataysan. 4, Eebbe waxa uu leeyahay ciidamo kala duwan oo cir iyo dhulba leh. Kalluunkuna wuxuu ku jiraa ciidankiisa. Nebi Ayuub calayhi salaam waxa uu ka mid ahaa nebiyadii reer bani Israa'iil. Waxa uu deganaa meel ka mid ah Shaam. Waxa uu ahaa nin hanti leh oo carruur, beero, xoolo iyo dhul ballaaran loogu deeqay. Waxa uu caawin jiray dadka danyarta ah ee tabaalaysan. Waxa uuna ehelkiisa iyo dadka deegaankiisaba ugu yeeri jiray in ay caabudaan Allah oo keliya. Nebi Ayuub waxa uu ka mid ahaa nebiyadii imtixaanka badan soo maray. Waxaa lagu ibtileeyey hantidiisa iyo carruurtiisa oo dhammaatay. Waxaa intaa u dheeraa in uu xanuunaaday. Waxaa la sheegaa in uu xaaladdaasi ku jiray muddo ku siman 8 sano. Nebi Ayuub waxa uu baryay Alle weyne subxaanahu wa tacaala oo mas-uulka ah kownkan iyo wixii saaran. Ilaahay wuu ka ajiibay ducadiisa, waxaana u soo laabtay caafimaadka, hantida. Sidoo kale xaaskiisa waxay u dhashay ubad tiro badan. Allah waa uu barakeeyey hantidiisa iyo carruurtiisa kadib markii uu ka sabray imtixaankii haystay. Aayadaha ka warramaya qisada Nebi Ayuub waxaa ka mid ah: xus Nebiyow Ayuub markuu u dhawaaqay Rabbigii isaga oo leh, waxaa i taabtay dhib, adiguna waxaad tahay naxariis badane. Waana ajiibnay, waxaanu ka faydnay, ka dulqaadnay wixii isaga haystay ee dhib ah. waxaanamu siinay reerkiisa iyo in la eg naxariis agtayada ka ahaatay awgeed, iyo dadka Eebbe caabuda in ay kuwaano qaataan. Maxaynu ka baran karnaa qisadani? 1, sabirku waxa uu ka mid yahay tilmaamihii nebiyada. 2, adduun waxaa u wanaagsan xaas wanaagsan. 3, dadka waxaa ugu imtixaanka adag ambiyada. 4, farajka waxa uu yimaadaa shiddada kadib. 5, ducadu waa cibaado. 6, waa muhiim in Alle loo mahdiyo kolka aad barwaaqaysan tahay iyo kolka aad dhibaataysan tahay.